إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال waad salaamantihiin meel kastoo dunida aad ka joogtaan. barnaamijkan waxaan jeclahay insha allah haddii ilaahay subxaanahu wa tacaala ka raali noqdo, waxaan jeclahay inaan tilmaamo asxaabti ridwaanullaahi calayhim ajmaciina markii dadka ay xukumi jireen iyo markii ayaga xukun lala soo raadsado say ahaan jireen iyo waqti xaadirkan annaga aan joogna ummadayna khaasatan maaragtay dadka muslimiinta ah wa khaasatan haddana soomaalida iyo ayagan dhaqankooda maanta siduu yahay. farqiga u dhaxeeya ayaa waxaan rabaa inaad ila aragtaan oo ma aragtay aan ku cibro qaadano, ma aragtay haddii wax ay naga qaldan yihiin aan iska saxno. waayo sheeko waxba ma tarto haddii laga sheekay asxaabta ridwaanullaahi calayhim ajmaciina oo laakiin dhaqankooda aan la qaadanin waxba ma faa'iideyso. laakiin haddii maaragtay intii laga sheekayo oo maaragtay dadka lagu waaniyo oo dhaqankooda la qaato oo qofkii dembi ku jiray ama qalad ku jirin uu ka soo laabto, qofkii u socdana uu ka joogsado, waxbay faa'iideysay markaas. laakiin hadday naqato ka sheekay waxba ma tarto. marka waxaa la rabaa in maaragtay lagu cibro qaato say ahaan jireen ridwaanullaahi calayhim ajmaciina iyo annaga maanta bosishinka aan taagannahay ama booska annaga aan taagannahay. haddaa tusaale ahaan usoo qaato saxaabigii la yidhahdo saciid ibnu caamir aljumaxi, saxaabigaas wuxuu ahaa rajulun ishtara addunya bilaakhira. adduunyo ayuu wuxuu ku gatay aakhira, aakhira ayuu soo gatay. adduunyo intuu suuqa geeyey ayuu iska gaday saciid ibnu caamir, aakhira ayuu soo gatay. sababta loo yirina maxay tahay waad arki doontaan. saciid ibnu caamir aljumaxi wuxuu ahaa saxaabi oo ka mid a asxaabta nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam. markii la dilayay khubayb dilkiisa ayuu ka qeyb galay, uu joogay markii meeshii lagu dilayay ayuu taagnaa saciid ibnu caamir. ayib, kadibna markuu arkay ninkan diintuu ku dhegan yahay oo ninkii oo gacan laga goynayo oo lug laga goynayo oo diintiisu ku dhegan yahay markuu arkay, alla ile wuxuu yidhi ninkan saan oo ma aragtay jirkiisa looga goynayo oo ma jeceshahay in adiga ah badbaadid, nabi moxamed meeshan la keena ma jeceshahay laleeyahay, asigana uu leeyahay wallahi inay qudax ay durto nabi moxamed ma jeceli, anigoo gurigeyga iska jooga, xataa anigoo gurigeyga joogo aamin aan ku jiro nabi moxamed inay qudax durto ma jeceli wuu yidhi. gacanta asigoo laga goynayo, lugta laga goynayo ayuu arkay saciid ibnu caamir. saas darteeda marka wuxuu yidhi ninkan wuxuu ku dhegan yahay wax sahlan ma aha, qofkuusaan u jecel yahay ama u taageersan yahayna qof caadiya ma aha, waa inaan soo arkuu yidhi. saciid ibnu caamir sababtaas ayuu ku soo muslimay. wuxuu yimid ma aragtay nabi moxamed sala allahu alayh wasalam ayuu u yimid. markii islaamnimada uu weydiiyeyna loo sharxayna islaamnimada ayuu qaatay saciid ibnu caamir. ayib, idan nabi moxamed sala allahu alayh wasalam wax yar ayuu joogay markii saciid uu soo muslimay. nabigeyna moxamed sala allahu alayhi wasalam wuu dhintay. markuu dhintay nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam waxaa qabsaday khilaafada abubakar. abubakar wuu dhintay, cumar ayaa qabsaday. xilligii cumar wuu joogay saciid ibnu caamir. marka tusaalada meesha aniga aan ka rabo weeyaan, saciid ibnu caamir xilligii loo dhiibay cumar ibnu khataab khilaafada wuu taagnaa. maalin maalmaha ka mid ah ayay waxay is arkeen cumar iyo saciid. markaasuu wuxuu ku yidhi saciid, cumar wuxuu ku leeyahay, cumarow ilaahay dadkan ayuu kuu dhiibay oo madax kaaga dhigay, waan kuu dardaarmaa wuu yidhi. aqim wajhaka liman wallaaka allahu amrah. ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddan amarkooda kuu dhiibay oo adiga lagugu aaminay oo ma aragtay adiga mas-uuliyaddeeda aad qaaday, ilaahay uga cabsou yidhi. cumarow waa kuu darda. ninka la leeyahay waa casharatu lmubashiriina biljanna
وادتكي أيغو نول جنة لوغو بشاري عمر بن الخطاب رضي الله عنه واتخانا أيا وحال لي هي إلهي أغعبسو أمدان ومسؤولي دي ذو كود ديبي مركاسو وحيري وأحب ما تحب لنفسك وحا نفتا هذا لجعشهي نفتا لجعشهي لجعلاو أهل كاذ وحا لجعشهي أيغن أهل كوذ لجعلاو مسلمين عمرو أو إلهي أغعب سويري عمر ابن الخطاب أيا وحال ليهي ومدن إلهي أغعب سو وما أركتي ددك إلهي كودي بي حكم كوذ أذي مسؤول آتكتهي إلهي أغعب سو نفتا وحا لجعشهي لجعلاو أهل كاذي أولاد هذا وحا لجعشهي مسلمين تأهل كوذي أولادو ذا لجعلاو عمرو وما لم تقيام ولا حساب أقو عمر وأسيو 10 المبشرين بالجنة أنتو أرقاقحي أو حجري إذن أنيق ما أنتو حنجعلهي إن أذيقنا ما أرقتي قيب إغلقيب قادتيت وما أرقتي أذيقنا aad ka mid naqatid mas-uuliyiinta maanta oo ma aragtay oo ugu waaweyn aad ka mid naqatid ayaan jecelahay yiri Saciid ibn Aamir markii saas la yiri wuxuu yiri aniga ha ifidnaynin Umarow habluka ala gharibika yiri xaraga qoorta ku saarnaado marka aniga ha ifidnaynin Umar intuu xanaaqi wuxuu yiri mas'uuliyadii ayaa dushi iga saarteen waana iga kala dhaqaaqdeen Soomaha yiri والله إننا كا يلينين أنتو دارتي عمر مفروس وحيري إذا مقالة حمص اللي يرادا أيان كو ديبا يوري سعيدو أنا جمان تسان كاغا تغاي وايو وحان كو أركانين أقلم وايو وحان كو أركانين عدالة سميناي وحان كو أركا قف ألا كعبس يقان أو إلهي سبحانه وتعالى آد وقودو وياتها يوري سعيدو ساس درتي كاما تغاي يوري والله مقالة حمص إنان كو ديبوا عمر وو دارتي مقالة حمص كو ديبا يوري سعيد مركو واكو قصبان يهي عمر نقولي يهي آنيق مسؤوليدي اياد إسارتين وانا إيقا كلا دقاجسين إلهي مالان تقيام وإذن ويدين دونا أذيقن إلهي كعبسو سعيدو مسؤوليدا وإيولا جرتاي وقاذا يسا مقالة سالقود ديبا ليري طيب هو أقلادي سعيد ابن عامر مقالة مركي لقي محاد عاي مرك وفيرسو مقالة دي لقي سعيد ابن عامر ومدح لوغا ديقي حمص مركي لقي maalmaha ka mid marka waxa soo baxay wafdi oo magaalada Xims ka yimid oo Umar ay u yimaadeen maxay leeyihiin marka Umarow waxaan rabnaa dad masaakiina ayaa jiro oo magaalada Xims degan oo ma aragtay gurigooda dab aan lagu shidaynin oo gaajaysan oo rafaasan ayaa jira la yiri Umar markaas wuxuu yiri warqad qaata oo ii soo qora dadka masaakiinta oo gaajaysan oo rafaasan oo dabkooda aan la shidaynin ii soo qora dadkii way laabteen magacayay soo qoreen magacyadii waxa ku jira marka amiirkii oo loo dhiibay magaalada Xims yaaway Saciid ibn Aamir ku jir dadka dabkooda aan la shidaynin bal u fiirsada farqiga u dhaxeeya madaxdeena iyo madaxdaas oo islaamka farqiga u dhaxay arka maxaa dhacay marka عمر ابن الخطاب وفدقي مقالدي مركي آذين oo soo qoreen dadka masaakiinta fuqarada ah ay soo qoreen waxay u soo laabteen Umar ibn Khattab radiyallahu anhu ay u soo laabteen Umar warqadii loo dhiibay fulan ibn fulan faqir wa miskin fulan ibn fulan faqir wa miskin fulan ibn fulan faqir wa miskin Sa'id ibn Amir faqir wa miskin ومن سعيد يا واير عمر سؤاشي ويديي مركاسا waxay yiraahdeen amiruna amirkeen amirukum faqirun amirkiina faqir miya waxba ma haysta miya oo dadka dabkooda aan la shidaynin miyuu ku jira amirkiina oo magaalada dhan haysta markaasa waxay yiraahdeen dhaaray ku sii daran wallahi innahu latamurru alayhi al-ayyam at-tiwal wala yuqad lahu nar wallahi innahu latamurru alayhi al-ayyam at-tiwal ما لما أيا صوم مريسا يرادين ولا يوقد له نار في بيته قرقي سنة دبلغ مشي يرادين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إيمانك أرك
innahu latamuru calayhi alayaamu tiwaal maalamo ayaa soo maraysa saciid ibnu caamir oo gurigiisa dab aan lagu shidaynin oo awlaadiisii asiga ay gaajaysan yihiin waa amiirkii oo magaalada dhan gubernatorihii magaalada dhan weeyaan duqi magaalada haddaad rabtid af soomaali magaalada dhan uu haystaa cumar ibnu khadaab su-aashii markii weydiiyey dadkii uu ku celiyey amiirkiina ma saas ah waa dhaaray ku sii dareen markaasuu cumar intuu ooyey fabakaa cumarun xataa ballala dumuucahu an lixyatih cumar wuxuu oynay ilaa garkiisa uu ka qoymo ayuu oynay cumar ibnu khadaab radi allahu canhu wa ardaah markaasuu wuxuu yidhi lacag intuu credis uu ku riday bahalkan la xirto reer baadiyaasha ay ku ridi jireen lacagta danaaniir intuu ku riday ayuu wuxuu yidhi amiirkiina u geeyay intana masaakiinta iska leh 1000 diinaar oo gooni ana amiirkaa iska leh ha loo geeyo yidhi u fiirsada waxaa dhici doona marka subxaana allah farqiga u dhaxeeya war jannada waa la shaqaystay naarna dadaa shaqaysanaya jannana dadaa shaqaysanaya ya naarna shaqo ay u baahan tahay jannadana shaqo ay u baahan tahay saciid ibnu caamir 1000 diinaar markii loo keenay gacantuu madax saartay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun xaaskii oo jikadu ku jirtaa soo carartay ar maxaa kugu dhacay masiibaa gurigeyga soo gashay yiri fidna ayaa gurigeyga soo gashay wallahi inamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna ilaahay subxaanahu wa taala qur-aanku uu ku yidhi inamaa amwaalukum wa awlaadukum fitna wallahi fidno weeyaan gurigey ayaa fidno soo gashay yiri aayaddii wadabaqa arag aayaddii qur'aanka lagu tilmaamay almaalu walbanuuna ziinatu alxayaati addunya walbaaqiyaatu asaalixaatu khayrun cinda rabbik arag ilaahay subxaanahu wa tacaala ziine ayuu ku tilmaamay waa wax oo ziine ah laakiin waxaa ka khayr badan baaqiyaatu saalixaat camalka wanaagsan xoolahaas aad u jeedda adduunyada zukhrufaadkeeda quruxdeeda waxaa ka khayr badan camalka wanaagsan ayaa ka khayr badan oo ilaahay subxaanahu wa taala aad ugu dhowaanaysid adduunku waa maalimo oo la xisaabayo oo marka ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aankiisina uu ku tilmaamay uu ku sheegay guruur yuusan ku galin kadis yuusan ku galin arag asxaabta ridwaanullahi calayhim ajmaciina marka maxaa dhacay marka saciid ibnu caamir markuu saas uu sameeyey oo fidno ayaa gurigeyga soo gashay uu yidhi xaaskiisina maxay ahayd waa mu'minad ilaahay subxaanahu wa tacaala sida zakariya iyo xaaskiisa ilaahay subxaanahu wa tacaala qur-aanka uu ku tilmaamay wa zakariya wa yaxya wa ciisa markii ilaahay subxaanahu wa taala fi suurati alambiya uu ku leeyahay kullu min asaalixiin dhammaantooda saalixiinta ayay ka mid ahaayeen innahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraati wayadcuunana ragaban warahban wa kaanuu lana khaashiciin ilahi subxaanahu wa tacaala zakariya xaaskiisa waxay ahaayeen innahum kaanuu yusaaricuuna fi lkhayraat khayraadkay u degdegaayeen ilahi subxaanahu wa tacaala wayadcuunana ragaban warahba ayagoo argagaxay oo cabsanay ayay ilaahay subxaanahu wa tacaala ay barinayeen ay tuugaayeen oo ilaahay subxaanahu wa tacaala waxay ka rajaynayeen naxariistiisa iyo jannadiisa marka wayadcuunana ragaban warahban ilaahi subxaanahu wa tacaala ayagoo rajaynay ayagoo cabsanay ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala gacmood intay kor ay u taagaan ay tuugaayeen u fiirso marka saciid ibnu caamir fidnadii markii gurigiis u soo gashay fidno ayaa ii soo gashay uu yidhi xaaskiisna ay soo carartay oo maxaa kugu dhacay ay tiri asigana uu leeyahay fidno ayaa gurigeyga soo gashay masiibo ayaa ii soo gashay markaasaa waxay tiri idan khallis minha ka takhallusay tiri haddii masiibo gurigaaga soo gashay masiibadaas ka hortag gacan ma igu siinaysaa wuri ma igu caawinaysaa nacamay tiri waa kugu caawina waa kugu caawina ballan waayay tiri waa mu'minad ilaahay subxaanahu wa tacaala rumaysay ilaahay jannadiisay rajaynaysaa ma aha kuwa maanta jooga oo kale markii zoojkoodii oo maaragtay xaaraan u keena ay u sacbinayaan markii xaaraan iyo maaragtay masiibo gurigooda soo gasha ay leeyihiin maasha allah in ka badan haddii aad noo keeni lahayd waa ficnaan lahayd ay leeyihiin xaaraan lama dhahaayo way ku caawinaysaa fidnaday ku caawinaysaa maaragtay masiibadii ayay ku caawinaysaa xaaraamtii ayay ku caawinaysaa maalinta qiyaamana yowma yafiru lmar'u min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniihi likulli imri'in minhum yowmaidin sha'nu yugniihi qof kastaba sha'nigiisa ayaa u yaal waa la kala cararaa maalinta qiyaaman
adaa ii halaagtay iyo adaa ii halaagtay adaa sabab u ahaa ayaa ka dhacaysa lacnad ayaa ka dhacaysa ama fi dunya maxay noqdeen marka zawjaadka qaarkooda maxay noqdeen in zawjkii lagu caawiyo fidnadii iyo masiibadii iyo xaarantii iyo ma aragtay wax u kala soocan ma laha ayay ku caawiyeen ayadana ilaahay subxaanahu wa tacaala kama cabsanin ama zawjadan saciid ibnu caamir markii fidnada guriga soo gashay waa 1000 diinaar waa 1000 diinaar ma raban aakhiradooda inay fasaadiyaan ma raban ayagii ilaahay subxaanahu wa tacaala maaragtay xiriirkooda inuu xumaado ma raban ilaahay subxaanahu wa tacaala cadaabtiisii inay galaan ma raban ilaahay subxaanahu wa tacaala inuu maalinta qiyaama ayagoo ma aragtay oo wejigooda la fiiqay ama ma aragtay naarta meeshii lasoo istaajiyey oo lagu diray naartii la yidhi khuduuhu faqulluhu uma aljaxiima salluuhu ma raban inay naqdaan oo qabta xirxira silsilad ku xira oo naartu ku tuura in la yidhahdo ma rabaan ilaahay bay ka cabsadeen ilaahay bay ugu dhowaatay ee waxay tiri masiibada iskaga takhallus saciidow waanu kugu caawinaa markaasuu wuxuu yidhi amiirka ayaa waxaa noo soo diray 1000 diinaar ayuu noo soo diray aakhiradayna ayay fasaadinaysaa laakiin waxaan kuu sheegaa maalintan ka dhibaato badan nahay ayay noo imaanaysaa yidhi waxaan amaahinaynaa qof noo keenaayo maalintaasi oo dhibaatadu ku jirno qof noo keenaayo oo noo gudaayo ayaan amaahinaynaa yidhi man dha aladii yuqridu allaha qardan xasana fayudaacifahu lahu adcaafan kaiira من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة وهكذا أرك من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها من جاء بالحسنة فله 10 أمثالها وهكذا إخواني في الله إلهي سبحانه وتعالى مركا أركا دتك سي أحايين أو دغن كوض أي أحايين رضوان الله عليهم أجمعين إلهي سبحانه وتعالى كرا لنقضي مركا محي سميين وحي أدرن oo maalinta qiyaamo ay u direen akawnku aakhire ay ku shibteen 1000 diinaar markaasuu saciid ibnu caamir wuxuu sameeyey 10 diinaar ama 100 diinaar u geey heblaay ogoonta haysatay 10 diinaar u geey masaakiintii hebel 10 diinaar 20 diinaar 100 diinaar u geey gabadhii oo maskiinta ahayd garoobta ahayd oo maaragtay ninkeeda ka dhintay waxba aanan haysanin u geey wahaakada saas ayuu u qaybiyey markaasuu wuxuu yidhi maalintan ka dhibaato badan ayaa ma aragtayna noo keenaa yidhi ilaahay ayaan amaahinu yidhi waana runtiisa maalintaas ka dhibaato badan ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala ka abaalmarinaya oo ma aragtay abaalmarintooda janno uu ka dhiga rabbi subxaanahu wa tacaala asigana qur'aanku ku yidhi man dha aladii yuqridu allaha qardan xasana fayudaacifahu lahu adcaafan kaiira iimaankaas ma leedahay taqwadaas ma leedahay isku fiiri marka ma lihid ammaano ma lihid taqwo ma lihid oo ma aragtay xalaal iyo xaaraam kuma kala soocan waad iska socotaa markaasaa waxaad rabtaa inaad adduun aad ku raaxaysatid aakhirana janno aad gashid ayaad rabtaa dadkaana maxay ahaayeen adduunka ayay ka sabreen adduun ma ka sabri kartaa madaxtinimo ma raadin jirin xukun ma raadin jirin wahaakada markii lala soo doontana way ka cuudubilaysan jireen way ka carari jireen baynamaa annaga maanta malaayiin aan ku bixinayna baynamaa annaga maanta aan isku dilayna baynamaa annaga maanta ma aragtay lagu kala tagayo oo ay ku kala fogaanayaan dadkii asxaabta ahaa mas walaalaha ahaa laakiin dadkan maxay ahaayeen xukunka markii lala soo doonto naftirkooda gurigooda loo keeno ama ma aragtay maal loo keeno way ka carari jireen maanta ma jira qof oo ma aragtay xukun ka cararay wallahi inaad ka carartid iska bardhaaf malaayiin ayaad ku bixinaysaa si adiga xukunkaas aad u gaartid markaad gaartidna borogaraamka maskaxdaada ku jira mataqaanaa borogaraamka maskaxdaada ku jira waxaa weeyaan in oo ma aragtay adigana malaayiinkii kaa baxay malaayiinkaas laba jibaarkooda inaad heshid adduunna aad ka gadatid guriyaal daaro waa wanaagsan ka gadatid baaburku u fiican inaad ku socotid ehelkaaga ay kugu noolaadaan nolosha tan u sarayso wallaahi oo billaahi oo tallaahi halaag ayaad u keentay daarahaas aad u jeedidna wallaahi ayuha annaas maa lii araakum tajmacuuna maa laa ta'kuluun watabnuuna maa laa taskunuun laysoo maaha abidardaa markuu dardaarmaayo dadow waxaan idin jeedaa yidhi adduunya ayaad ku mashquusheen waxaan u jeedaa yidhi wax idinka aanan cunaynin ayaad aruurinaysaan yidhi daari idinka aanan ku nagaanaynin ayaad dhisaysaan uu yidhi ayuha annaas maa lii araakum tajmacuuna maa laa ta'kuluun watabnuuna maa laa taskunuun wallaahi gurigaaga runta ah waa qabriga oo 2 mitir ahaa ayaa lagu dhigi doonaa ogow daartaada ugu wanaagsan ugu quruxda badan taas weeyaan
haddaad wanaajin lahayd iyo haddaad xumayn lahayd. marka waxaan ka wada arka marka farqiga u dhaxeeya maanta asxaabta markii xukun lala soo doontay iyo adduunyo markay soo doonata say ahaayeen. cumaraan ka soo bilaabay, waa la waaniyey asigoo amiirulmu'miniin ah oo ilaahay ka cabso la yidhi, ummaddan xukunkooda ilaahay kuu dhiibay oo rabbigaad ugu cabso, naftaada waxaa la jeceshahay, nafta muslimiinta la jeclaaw, ehelkaada waxaa la jeceshahay, ehelka muslimiinta la jeclaaw, awlaadaada waxaa la jeceshahay, awlaadda muslimiinta la jeclaaw. ma jirtaa maanta taas? waa su-aal xagga iska dhig. ma jirto. xaqiiqada waxaa weeyaan zero waay. ayib, saciid ibnu caamir soo qaado, xukunka ayuu ka cararay, wuu diidey. ma jirta qof xukun ka cararaay? ma jirto. xagga dhig. saciid ibnu caamir 1000 diinaar ayaa loo keenay. 1000 diinaar gurigiis markay soo gashay, fidno ayaa ii soo gashay uu yidhi, maalkii ayuu ka cararay. ma jirtaa qof markii asi xukunku qabto oo ma aragtay oo xoolo loo keeno inuu yidhaahdo ilaahayaan ka cabsana, xoolahan masaakiinta iskale, xoolahan shacabka iskale ha la siiyo, asigoo dhahay ma jirtaa? waa ma jirto. zero. maxaa ku yaala marka? iimaankaaga aaway, islaamnimadii aaway, annaga waxaan ku abtirsanaa nabi moxamed sala allahu calayhi wasalam waddadiisa maraa la yidhi aaway. ma jirta. ikhwaanii fillaah, adduunkan waa laga tagaa. kullu nafsin bimaa kasabat rahiina. naf kastana waxay kasbatay ayay leedahay. ummaddan ilaahay subxaanahu wa tacaala ha looga cabsado, masaakiintan ilaahay subxaanahu wa tacaala ha looga cabsado. shacabkan oo dulmisan oo ma aragtay 25 sano ka badan oo dulmi ku jiray oo ma aragtay lagu kor soconaay, ilaahay subxaanahu wa tacaala ha looga cabsado. maanta waxaa madax aad u tahay ama ma aragtay aad u ordaysaa ummad oo ma aragtay maanta oo xaq ah oo waajib ah in loo kaalmay u baahan. ma aha ummaddan ummaddii xoolaheeda la cunaay. ayadoo ummadda xoolaheeda aan la cuni karin, soomaali maba ula sii jirtaba. ayagaba waa masaakiin, ayaga dhammaantoodii waa dad masaakiin ah, waa dad ayaga dhulka jiifa, waa dad ayaga tacbaaniin ah, waa dad ayaga ma aragtay dulmigii iyo ka batay. dadkaas waxay u baahan yihin, xiilin ayay u baahan yihin. ma aha in xoolahooda la aruursada, ma aha in la dulmiy, ma aha. qof waxay u baahan yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala uga cabsanayo oo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ma aragtay hor istaagitaankiisa uga cabsanayo. wahaakada qofkaasay u baahan yihiin ilaahay subxaanahu wa tacaala towfiiqda allahna waafajiyo. ilaahay subxaanahu wa tacaala cizi ishraf allahna siiyo. mid caadil ah oo ummaddan ilaahay subxaanahu wa tacaala uga cabsanayo oo saciid ibnu caamir aljumaxi oo kale ah, ilaahow noo soo dir. ilaahiyow ummaddan waa baaba'day, ummaddan waa dhibaatowday, ummaddan ma aragtay dhulkaa lagu jiiday. ilaahayow qof u gargaarayo oo u xiilinayo oo ugu turayo oo uga cabsanayo oo rabbigood uga cabsanayo, ilaahayow u keen. wahaakada marka dardaarankayga waxaa weeyaan ilaahay subxaanahu wa taala ummaddan ha looga cabsado sidii cumar ibn khataab. aqim wajhaka liman wallaaka allahu amra. ummadda mas-uuliyaddeeda ilaahay kuu dhiibay, ilaahay uga cabso. kii mashriq jira iyo kii maqrib jira iyo maaragta kii garbi jiraba, ilaahay ummaddan uga cabso. haddaa madaxweyne koonfur aad tahay, haddaa madaxweyne galbeed aad tahay, haddaa madaxweyne waxa adiga aad tahayba. wahaakada qof kasta mas-uula. kullukum mas-uulun wamas-uulun can raciyatihi. idinka dhammaantiin mas-uuliin ayaa tihiin. waxaa laydin mas-uul aad ka tihiin, waxaa laydin raacsiiyey. ummad baa wax idin dhiibatay. ilaahay subxaanahu wa taala looga cabsado. waa iga dardaaran walaalkaaga ayaan ahay, ku jecel ayaan ahay. ilaahay cadaabtiisa ka cabso. adduunka waad ka tagaysaa, qabri ayaad galaysaa. ilaahay subxaanahu wa tacaala ka cabso. maalin waxaa kaa dambaysa yowma yafiru lmar'u min akhiihi wa ummihi wa abiihi wa saaxibatihi wa baniihi likulli imri'in minhum yowmaidin sha'nu yuqnihi ayaa kaa dambaysa. ogow yowma tubadalu alardu gayra alardi wasamaawaat wabarazuu lilahi alwaaxidi alqahaar ayaa kaa dambaysa. ogow yowma tashaqaqu asamaau bilghamaami wanuzila almalaa'ikatu tanziilan ayaa kaa dambaysa. yowma laa yanfacu maalun walaa banuun ilaa man ata allaha biqalbin saliim ayaa kaa dambaysa. ikhwaanii fillaah, marka dardaaran waxaa weeyaan qofku jecel ayaa kuu dardaarmo, kuwaanay wax kuu sheega. wahaakada ilaahay subxaanahu wa taala nagu anfaco. barnaamijkayna in sha allah halkaas ayaan kusoo gabagabaynaa. wixii aniga aan gafay famin nafsi wa min shaytaan, wixii aniga aan asiibayna ilaahay subxaanahu wa taala naga thawaabiyo, idinkana ajar iyo xasanaad allah idinka siiyo. barnaamijka waxaa idinla socodsiina anigoo ah Ilyaas Cali Nuur Cali. wajazaakum allahu khayr. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi tacaala wabarakaatuhu. fi amaan illah.